kulanti wanaagsan saaxiibayaal kula soo dhawaada Dhuumoole TV. qodobada aan idinhaynana waxaa ugu dooran ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeer oo lagu aasay magaalada Muqdisho. dowladda Kenya oo hanjabaad u dirtay dowladda Soomaaliya sheegtayna in tilaabo military ka qaadi doonto hadday qalalaas dambe ka dhacaan xuduudda u dhaxaysa labada dal iyo dalalka Armenia iyo Azerbaijan oo heshiis ku kala saxiixday magaalada Moscow ee cariga Ruushka. qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan hayna dambeeyaan marka hore subscribe saar Dhuumoole TV mahadsanid. aan ku bilowno ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeer ayaa lagu aasay maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. ra'iisul wasaare Professor Cali Khaliif Galeer ayaa saaka laga soo dejiyay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan airport ee magaalada Muqdisho iyadoo halkaasi lagu sameeyay aas qaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka. ugu horreyn waxaa geeyay diyaaradaha ku sugaya meydka mas'uuliyiin ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo deegaanada Puntland uga soo baxay ka qaybgalka aaska ra'iisul wasaare Professor Cali Khaliif Galeer. waxaa kulanka ku weelinayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Marfanish. meydka ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas laga soo dejiyay iyadoo ka soo dejiyeen diyaaradda cutubyo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo sanqaadkooda ay ka muuqatay murugta geerida oo ciidamadu dareensanaayeen. waxaa intaasi kadib salaada janaasada lagu tukaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. meydka ra'iisul wasaaraha waxaa janaasada ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, gudoomiyaha gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowladda iyo shacab aad u fara badan. waxaa halkaasi lagu dukaday salaada janaasada. dukashadii salaada janaasada kadib waxaa la soo qaaday meydka xarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala degmada Hodan ee ka tirsan gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. meydka ayaa halkaas lagu aasay. waxaa guud ahaanba saaka xiray wadooyinka soo gala xarunta xarada ciidanka xoogga dalka iyadoona halkaasi galabta lagu aasay. dhanka kalena dowladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay tallaabo military ka qaadi doonto Soomaaliya. waxay Kenya sheegtay inay ka qaadi doonto tallaabo military dowladda Soomaaliya haddii ay joojin weyso qadka ay ka wado xuduudda ku teedsan labada dal. Kenya waxay dalbanaysaa in la joojiyo dibadbaxyada ay shacabku ka wadaan deegaanada gobolka Gado. haddii la joojin waayana waxay sheegaysaa inay tallaabo military qaadi doonto. Kenya oo soo aragtay Soomaaliya inay ka awood badan tahay waxay isku dayaysaa inay samayso carqalad iyo weliba hanjabaad ay ku samayso xuduudda Soomaaliya iyadoo la dhacsan inay ka awood roon tahay dowladda Soomaaliya. Kenya oo military adeegsanaysa waxay isku dayaysaa inay ka guul keento Soomaaliya iyadoo sheegaysa inay tallaabo military oo cad u qaadi doonto Soomaaliya. Kenya oo haatan isu diyaarinaysa colaad ka dhan ah Soomaaliya waxay qaadaysaa gulufyo waaweyn oo shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolkaasi Gado ku xasuuqayso iyadoo sheegaysa inay ka hortagayso argagixiso. hase yeeshee iska caddahay Kenya waxa ay duulaanka ku tahay in yihiin shacab Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed si ay dowladda Soomaaliya ugu gacan qaado. ciidamada Soomaaliyeed oo 2 toddobaad ka hor ka jawaabayay gardarro ay ku samaysay dowladda Kenya. ciidamada militariga ah ee ku sugan xuduudda labadaasi dal shacab Soomaaliyeed ee banaanbaxaya ayaa dhaliyay caro aad u weyn iyadoo Kenya aragtay inay Soomaaliya ka dhigdhinayso gardarradeeda. Kenya ayaa markan wajahaysa cadaadis ka dhan ah Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay Kenya cunaqabateyn ku hayso ilaa ay Kenya ka ogolaanayso waxyaabaha Soomaaliya ay ku qancayso. dhanka kale wararka dibadda
dalalka Armenia iyo Azerbaijan oo ku dagaalsanaa gobolka Nagorno-Karabakh ee xuduudda labadaasi dal ayaa heshiis ku gaaray magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Armenia iyo Azerbaijan oo dagaalamay toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa heshiis ku gaaray caasimadda Moscow ee dalka Ruushka. waxaa garwadeen ka ah madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin oo heshiiska dhexdhexaadiye ka ah. waxay ku gaareen heshiiska inay joojiyaan xabadda ilaa iyo amar dambe, iyagoo sheegay halkaasi inay xabaddu ku joogsan doonto. heshiiska oo ay kala saxiixdeen labadani dal waxaa garwadeen ka ah dalalka Turkiga iyo Ruushka iyo Turkiga oo u muuqday inuu dhinac shitaarayo ayaa haatan ku guuleystay heshiisiinta labadani dal ee ka wada tirsanaa jiray Ciraaqda midowgii hore Sofiyeeti. dalal waaweyn oo kala taageeraya dagaalkan ayaa laga dalbaday inay joojiyaan dagaalka iyo taageerada ay u fidinayaan dowladaha qaar. Armenia iyo Azerbaijan ayaa muddooyinkii dambe isu garaacayay gobolka u dhexeeya labadaasi dal ee Nagorno-Karabakh. intaan warkiisa xeego ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.